Cabdullaahi Cali Watiin waa gudoomiyaha degmada Baydhabo dhawaanahan waxa uu safar shaqo ugu maqnaa dalka Japan ee uu kaga qayb galayay shir uu soo agaasimay bangiga adduunka oo ay ka qayb galayeen magaalooyinka ay aafayeen dagaalada sokeeye ee ka dhacay adduunka. Soo laabashadiisa Baydhabo waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo gudoomiyayaasha xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Baydhabo, saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo barbaarta hidaha iyo dhaqanka oo ku labisnaa dharka leh midabka calanka koonfur galbeed Soomaaliya. Gudoomiyaasha xaafadaha qaarkood iyo gudoomiye ku-xigeenka Baydhabo ayaa gudoomiyaha intii uu ka maqnaa beledkan Baydhabo warbixin kooban ka siiyay magaaladii iyo axwaasheedii iyagoo u sharxay hadaladoodii sida tan. Gudoomiyaha dhawaaw Baydhabo oo nabadiye wal ku halawsanayna systemka aad ku katabti iyo wili ku siifeyle walay argagahisna madhaas kadayna ilaahay mahad ishukrulle fiintiyo ilaahay booji wal ku horseeday wal qobaday wal hatareedka bilidkii ku dhiimle laakiin tijaabadad madhaas kaday jara arantiyadaha ayteen walka guuleysadi wal ku horseeday may kale ha ka dhawaadase barwaaq ilaahay dadsi rooba hanuun la helay nicmo ilaahay dadsi hanuun la helay magaalada wal ableeg ububanta سلام كدب الحمد لله إلهي ما هذا جيك فرح سنة ولك فرح سنة إني قدوميها معمول كدق مدة بيدبو أنا دوق مقالة أو سفر جري مقالوين دالك بنانشي سفر جري أو جيك إلهي سنة بدها كروري سنة بدن إلهي كجي يفرحدني رنتي مدن قدومية دق مدة بيدبو الحمد لله روى اللحلي برواقي جرت عفمدا جرى ciidamada imaanka dhamaantiyo ay magaalada Baydhabo sadiib ogayti imaanka hortaba ku shaqeeyay hatana lama jibaareen maadaama helo soonsoon ay wal hadhowtana hortag badan la suubiyo hay nimanka adowga deegaal badan la kala jara maalmo way hadhowayti safar shaqo may ka saanayeen deegaanadii uu hukumaani goof gaduud gudoomiye usoo ka soo bini gudoomiyihii ada ogayti talada hayti una magaawni sanabada ka jeeyni alxamdulillah shacabkeena oo wareegeen geeka maamulshi iyo iidinshi iyo shacabshi iyo meel raaya iyo wada shaqeyn inay bilowdaan ka ogna intaasi ka dhawaaw mudana gudoomiye ilaahay nabad ka shan isuma hadle insha Allah safarka shaqi wali armo ninka saabsanay degmada Baydhabo ada aan ka maqnayti war horta bulshada ko sugaasiyo insha Allah hadhawaaw Hawasa Korcali oo ah gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo oo qayb weyn ka geysatay isku soo dabaridka hab maamuuska lagu soo dhaweynayay ayaa iyaduna hadal ay ku soo dhaweynaysay gudoomiyaha u tiri sida tan. geek waliba hadhawaayanay gudoomiyaha degmada Baydhabo oo safar shaqan ka maqnay dalka banaanshay wali ha ka dhawaayanay si kalgaceel si meel raay is wadaninimo maadaama uu gudoomiyaha xukumaay uu sahay in badan shaqo kama qonay dana shakhsiyadeed kama qonayna dalka shaqan kama qonay dartiye ya wali haran banday inuu hadhawaayna gudoomiyaha dhawaaw degmada Baydhabo eedan faylanasa gudoomiyalka sheegan wal barbalay bay ku teegan male shacabkiis dhiitisu nabadiyad ogayti sideetiyo sidii aad ku tabtay wal qalaasay reedka ku dhiimale waxa uu gudoomiyaha la hadlay warfiyaanka isagoo uga warbixiyay kulankii uu kaga qayb galay magaalooyinka Japan oo ay kamid caasimada dalkaasi waxa uu gudoomiyaha la hadlay warfiyaanka isagoo uga warbixiyay kulankii uu uga qayb galay dalka Japan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay waxa uuna uga sheekayay sida tan. xaqiiqdii buu ciidanka faraxsanay boysan qaabkiisa may baahneen dhawaytan ومرهيس ولا ده نسينك فلاي مرك إن شاء الله مرجعين هدا إن شاء الله وده شغلين تاني يقول ما بقول كده ما دونت تنكله دبعا ودبل يا ما يبغى ودانك ما يبغى كمقنايني بنانك ما يبغى ديوديس ما يبغى يا أمباني ودانك ما يسني مرهيس جبان ما يبغى يا سيني ونأو هايني قدوميها دوغ مقالة كسمايو يو وزارة قرشنت ما يبغى لانكسادة يو ما يو أنا ما يبغى قدوميها دقنو دوغ مقالة بيدوه marka shirkaasi oni azumi markaas bangiga adduunka oo ni azumi ya marka yaa ka qayb galnay magaalada Tokyo iyo magaalada Osaka ee lamada magaalo ku weyn ee caasimada iyo magaalada kale ka wadanka Japan shirkaasi marka dabcan inta badan ka hadlay wadan badan oo adduunka Soomaaliya buu ahaa ka qayb galeen oo Soomaaliya markaas dagaalo soo kay hamareen dhibaatooyin badan far badan hamareen
ogeeyka mayba dhibaatooyinka dagaali sokay xamaan mayba ka kabsadeen mayba geeyka aan horumarin mayba nagadan ya mayba meerayso ya ka qayb gali inta badan meerayso aqoon iswadaarsiya mayba ya hayti iyo qaab geeyka Soomaaliya ahaan iyo anu ku gudub korna dhibaatoon xamar mayba halwaar mayba anu ka helo korna iyo baraka afar badan mayba geeyka mayba magaalooyinka Soomaaliya dhan mayba harqiyahay si halwaar lan kala lahay doorka meerayso dawladda hoos kale mayba meerayso adeeg bulshada mayba la siiyo iyo doorka meerayso bulshada nafsada mayba kala tiin shaqa adeeg mayba dawladda hoose maamul mayba biyaan iyo muhiimada meerayso bulshada lata wal kasta oo geey horumar kasta mayba la soo biyo magaalooyinka meerayso oo kala haayeen ama oo inta dagaal sokay xamarin geey mayba kabsadeen iyo siyo han kabsadeen iyo qaabka mayba xaqiiqdi oo mayba iswadaars mayba yahayti iyo doorka meerayso shirkadaha mayba private ka iyo kaliin meerayso horumarinta wadanka mayba kaliin marka xaqiiq meerayso oo iswadaars mayba eed muhiim mayba yahayti walbada mayba ka faa'iidni dabcan uu hada wali karaankan haay Soomaaliga ka dhibaatada haysata iyo kulmay buu meel mayba ya mayba ka bandhigni marna Soomaaliya mayba mathalan marna meerayso degmada mayba ya mathalan marka oo meerayso ka bandhigni geek meerayso waxyaabaha geek dhibaato Soomaaliya haysata iyo meerayso sadalanka baha kor mayba oo meerayso meelaha ka bandhigni taasoo may xaqiiq mayba shir oo muhiim mayba geek Soomaaliya mayba muhiim ahay walbadan walaal insha Allah ka faa'iidna insha Allah bulshada mayba uu deersi doon insha Allah tii uu maqnaa gudoomiyaha waxa uu sheegay inuu la soo kulmay shirkado ka shaqeeya dhismaha iyo qaabeynta magaalooyinka isagoo xusay in 16 bishan uu furmi doono mashruuc weyn oo lagu dhisayo wadooyin iyo buundooyin burbursan kuwaas oo halbowlo ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee ku yaala daafaha iyo bartamaha magaalada Baydhabo مختار شيخ آدم دلمر تلفزيون كعالمي GTN TV بيدهبو جنة